inkastoo dalku uu ku jiro isbeddel siyaasadeed ilaha dalxiiska ee Soomaaliya waxa ay yihiin kuwa dib u soo kobcaya. Soomaaliya waxay dhawaanahan soo jiidanaysaa shirkadaha shisheeye iyo dalxiisayaal ku soo qulqulaya geeska Afrika, kuwaas oo iyaguna sheegaya in dunida uga marqaati kacayaan in gobolku uu gaaray isbeddello. Layliga Goobjoog waxa uu si dhow u eegayaa in Soomaaliya loo soo dalxiis tago ma tahay mid fursad siinaysa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. tani markii ay Soomaaliya xorriyaddeeda heshay kadib midowgii labada gobol 1960kii jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay soo martay dhibaatooyin xanuun badan. dalka waxa ka bilowday dagaalo sokeeye iyo rabshado iyadoo ay jirtay maqnaashiyaha dawlad dhexe oo la aamini karo. dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa ay ka gooneed hor u socoshada iyo in dalka laga saaro dhacdooyinka xanuunka badnaa ee soo maray. Soomaaliya ayaa bishii September waxa ay ku biirtay ururka dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay iyadoo soo bandhigtay calaamado muujinaya dib-u-dhiska ballaaran ee ay samaysay waaxda dalxiiska dalka. dad badan ayay ka yaabisay in Soomaaliya ay tahay meel soo jiidata dalxiisayaal badan iyadoo wali ay jiraan caqabado dhanka ammaanka ah. dadka gudaha ku nool ayaana si tartiib u soo bandhigay meelaha dalxiiska oo muddo badan la iska ilaaway colaadaha aan dhamaadka lahayn ee ka socdo dalka aawadood. muuqaalo ka duwan kuwii hore oo muujinaya bilicda Soomaaliya ayay ka warramidooda saxafiyiinta dunida dib u soo celiyeen mar labaad iyagoo ka qoray sheekooyin badan oo meelo kala duwan oo qurux badan oo fasax iyo dalxiis ay ku tageen oo Soomaaliya ka mid ah. halkan waxaan u joogaa inaan la kulmo si aan u ogaado shaqada uu qabanayo Bashiir Cismaan oo ah mashruuc la rajeynayo inuu hooy u noqdo boqolaal dalxiisayaal kala duwan ah si ay ugu raaxaystaan ciidda iyo biyaha quruxda badan ee xeebta Muqdisho sanadaha soo socda. waxa aan weydiiyay inuu ila wadaago hawsha dhisme ee loo soo dalxiis tagi doono oo uu hadda ka wada xeebta Jasiira. sidaad aad ujeedid Muqdisho quruxdeedu waxay ku muuqataa xeebta ay ku taysan tahay. marka waxyaalaha Ilaahay oo Soomaaliya ku maneystay waxa ugu weyn waa kheyraadka dabiiciga Ilaahay siiyay. waxa kamid ah badda aan haysano xeebaha qurxoon ah ayadoo oo maanta ay tahay sida adduunyadu ay u develop garayso xeebaha in aanagana sidoo kale ku fakarno maadaama ay dadku maalinba xilli ay joogaan ayaa xilligan waxay tahay xilligii nabadda dadkuna ay ku fakari lahaayeen nolosha ay haysteen iyo wax ka weyn. sida aad u jeedid meeshaan annaga waxaan rabnaa inaan ka dhisno resort beach oo ay dadka magaalada ay imaadaan oo ay ka helaan yacni serviceyo kala duwan haddii ahaan lahayd maqaayado fiican oo seafoodka iyo haddii ahaan lahayd fun sport. marka yacni nimcadan Ilaahayna siiyey dadku oo meeshaan markii la dhiso in laga heli karo magaalada Muqdisho service ka bedelan wixii hore jiri jiray sababtoo ah capacity ahaan inay meel weyn tahay oo boqolaal dad ay imaanayaan ay waliba maalmaha weekendiga ay ka helayaan fanka ay rabaan oo hadday noqon lahayd sports hadday noqon lahayd dad wada sheekaysanayo hadday noqon lahayd familieska iyo caruurtooda meel ay ku ciyaaraan. Muqdisho waxa ay samaysay koror dhinaca dhaqaalaha sanadadii dambe waxaana kaalin ku lahaa qurbo joogta oo dib ugu soo laabtay dhulkooda hooyo si ay uga qayb qaataan dib u dhiska magaalada iyo sidoo kale dadaalada ay muujiyeen ganacsatada dalka gudihiisa joogto oo aan weligood dalka dibadiisa aadin. Cusmaan ayaa jooga Soomaaliya tan intii dagaaladu ay socdeen waxa uu la wadaagay mar kale rajada uu qabo maadaama uu kumanaan kun oo dollar uu ku bixinayo hotel ku yaala xeebta kaas oo soo jiidan doona dadka dalxiisayaasha ah haddii loo yagleelo sida naqshadiisa loo dajiyay. kala oo abuur kartaa rajo weyn oo ah dad intaas la eego inta isku meel imaadaan inay arkaan wixii hore arki jireen wax ka duwan meel sidii hore meelaha qaar ka duwan oo dhismayaal gooni ah inay leedahay waxay abuur kartaa rajo badan dadku inay arki karaan dalku inuu isbedelayo oo horumar iyo nolol cusub ay dadku bilaabanayso. waxay abuur kartaa ganacsi cusub oo aan hore u jiri jirin. waxay abuur kartaa shaqo abuur kartaa waxay abuur kartaa soo jiidasho badan dalxiisayaasha inay imaadaan. marka rajadu ma yaro
laakiin shaqo baana ka horeyso intaas dhan. duulimaadyada caalamiga ayaa toos u yimaada muqdisho sida Turkish Airlines waana xiriirka ugu horeeyay oo toos ah oo dhex maray Soomaaliya iyo Yurub kaas oo la soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda. diyaaradaha ka yimaada London isla markaana yimaada Muqdisho ee soo mara Ankara ayaa hadda waxa ay hawada ku soo jiraan muddo 12 saacadood ah iyadoo albaabada ay u furayso dalxiisayaasha rajeynaya inay arkaan muuqaalka cadceedda ka soo baxda biyaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya. dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay ku dadaalayso hagaajinta amniga caasimadda si loo helo goobihii dalxiiska ku habboonaa ee dalka taas oo ay u arkaan inay tahay mid u baahan dardargelin fursadna u noqon karta nabadeynta dalka iyagoo hadda wada dejinta qorshaha guud ee dalxiiska dalka. Soomaaliya waxay ahaan jirtay dal dalxiiska aad ugu wanaagsan Afrikana waxaa loo aqooni jiray African Riviera magaalada Muqdisho oo xeebaheeda ay aad loogu soo dalxiis tagi jiray sidoo kale waxay leedahay goobo runtii aad loogu dalxiis tagi karo oo dhammaan noocyada dalxiiska oo adduunku u baahan yahay. Soomaaliya sidoo kale waa dal cimiladiisu ay aad u wanaagsan tahay oo sanadkii oo dhan waqti walbaba loo dalxiis imaan karo. sidii burburkii dowladdii dhexe 1991 wixii ka dambeeyay waxaan ku dadaalaynay in Soomaaliya iyo qarannimadeeda iyo dowladnimadeeda la soo celiyo amniga iyo nabadeynta la hagaajiyo kadibna aan u soo jeesano arrimihii dalxiiska. laakiin hadda waxaan istusnay in waqtina uu socdo loona baahan yahay hadda inaan bilaabno dalxiiskii bacdama waddanku nabad noqonayo amni noqonayo waxaan wadnaa qorshaha in loo sameeyo dalka master plan oo dalxiiska ah in muxuu lagu dhiirigeliyo dadka caalamku inay waddanka usoo dalxiis tegi karaan inay jiraan goobo nabad ah oo la tegi karo iyo dhinaca kale anagoo wadna dadaal ah sidii loo abuuri lahaa jawi oo amni iyo nabadeyn iyo dowladnimo na dhinacan ka wadnaa dhinacan kalena waxaan bilaabnay qorshihii dalxiiska inaan boor ka jafno. muqdisho waa dhul xeebeed aad ku arkayso dhismayaal qadiimi ah marka aad ka soo degto aeroboorka waxaad arkaysaa biyaha badweynta Hindiya ee aadka u quruxda badan oo soo dhaweynaya dadka soo booqdayaasha ee imaanaya. marka si qoto dheer looga hadlo ahmiyadda uu dalxiisku leeyahay waxa dadka ku xeeldheer ay ku cabiraan faa'iidooyin dabiici ah in la helo meelo qurxoon. waa sidee heerka u diyaarsanaanta Soomaaliya ee kheyraadka dalxiiska dhul ahaan. baahida dalxiiska loo qabo laba siyaabood aan u kala qaadaynaa. cilmi ahaan dalxiiska waxaa jira halbeeg lagu cabiraa jiro. halbeega lagu cabiraa wuxuu yahay waxaa asaas u ah waddanka inuu leeyahay waxyaabo dabiiciga ah dalxiisiga ah. Soomaaliya dhanka dabiiciga ama kheyraadka dalxiiska ah waxay ku tahay kaalin weyn ayay kaga jirtaa adduunka. kaalin aad mug u len waxay kaga jirtaa Afrika markii loo fiiriyo. sidaan ognahay waxaan aad ugu faanaa badda dhererkeedu yahay 3333 kilomitir ah. waxaa intaas sii weheliya Soomaaliya maanta ay leedahay ayl oo ah cirifka ugu dambeeya maaragtay Soomaaliya waxay kaloo leedahay ama geeska Afrika ugu dambeeya ah waxay kaloo leedahay meeshii isaga darsamaan webiga iyo badda oo ah goob weyn meel u dhow. intaasoo dhan iyo buuraha aan qabno iyo muxuu ahaa webiyada beeraha caves wax la dhahaa jiro oo buuraha biyaha ay dhex maraan waxaasoo dhan markii la isku daro wax Soomaaliya u diyaarsan waayo oo ay ka mid tahay bacaadka ay ka mid tahay macarada dahabiga ah macarada cad waxyaabo dalxiisku ku faano cilmi ahaan. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu dalxiiska wanaagsan bariga iyo bartamaha Afrika. waxaa soo maray sanado tagay oo dalxiisku uu ahaa kaalin dhaqaale iyo mid shaqo oo ay ka faa'iideysan jireen dadka Muqdisho ku nool oo qaabili jiray dalxiisayaal ka kala imaan jiray dalalka Yurub, Ameerika iyo qaar ka mid ah dunida Carabta. balse howlahaas ayaa meesha ka baxay markii dagaalada ay ka bilowdeen dalka. waxaa jiray dalxiisayaasha Yurub khaasatan iyo Mareykanka ayay nooga imaan jireen. dalxiisayaal wadamada Carabta ka yimaada ma aanan arki jirin. waxaa jiray hoteelada dawladda ay leedahay ay inta badan ay ku degi jireen dalxiisayaasha. marka laga soo tago waqtigaas waxaa dhacday dalxiis dibadda nooga yimaada kaliya inaanan ku ekaanin. waxaa la qorsheeyey in dalxiis local ah oo gudaha ah oo hirgalo. waxaan ku bilownay hay-adihii dawladda wasaaradihii waxaa lagu bilaabay ardada iskuuladii maalmaha jimcada waxaa la geyn jiray dalxiis
marna waxaa la geyn jiray dhinaca jowhar iyo warshadii dharka iyo warshadii sokorta marna waxaa la geyn jiray dhinacan kaloo afgooye iyo ilaa muxuu ahay xeebta la yiraahdo xeebta Sambuusi maalmahaasna waxaa la cuni jiray inta safarkaas lagu jiro dalxiiska ah waxaa la cuni jiray cuntada localka ah oo dalka uu leeyahay baasta iyo bariis ma la cunaynin waxaa la cunaya soor waxaa la cunaya wax annaga aan hidaha dhaqanka u leenahay marka aad ku socoto meesha ugu weyn ee laga soo galay ciidda cad ee xeebta Liido oo ah xeebta ugu caansan magaalada Muqdisho waxaad ku arkaysaa muuqaalo xeebeed aan ka duwanayn xeebaha kale ee ku yaala dunida balse ka cimilo degan ganacsi yar oo ay ku maareeyaan noloshooda ay ka hirgeliyeen dumar badan oo aad ku arkayso iyagoo fadhiya oo ku iibinaya rooti la furneeyay moos jalaato iyo cabitaano qabow hareeraha xeebta wiilal iyo gabdho ayaa ku dheelaya halka kuwa kalena bartamaha badda ay ku dabaalanayaan waana dalxiisayaasha gudaha oo halkan waqti ku qaadanaya xeebta Liido ayaa ka mid ah meelaha Soomaaliya ee caanka ku tahay gaar ahaan Muqdisho iyadoo dad badan ay u yimaadaan halkan dalxiis iyo nasiino ay ku qaataan waqtigooda iyo sheekooyinkooda shaaha wata Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka dalxiiska waxa uu qabaa in magaalada Muqdisho ay ka faa'iideysan doonto quruxda xeebaheeda inkastoo helidda goobo dalxiis oo dhameystiran oo dadku u tamasla tago la aaminsan yahay inay jiraan caqabado hortaagan haddaba maxay yihiin caqabadahaasi caqabadaha ugu waaweyn waxay tahay dhanka amniga caqabadaha labaad waxay tahay dawladdii oo aan canshuurtii si wanaagsan dadka uga aruurinin oo aan dhaqaale ku filan haysan adduunkan oo deeqaha bixinaya oo dadka gaaraya waa dad ay dadkoodii canshuurta ay ka aruuriyeen ayay ummad kale ku taageeraan ku deeqaan annagii dawladnimadeennii iyo inaan xoogsano ayaan weli la gaarin habkii aan dadkii ay kaalintoodii uga qaadan lahaayeen inay canshuurta bixiyaan marka arrimahaas oo dhan waa caqabado jiro laakiin waxaan rajaynaynaa qorshayaasha aan wadno marka la fiiriyo dhanka amniga horumarka laga sameynayo la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay dawladdoodii hadda taageerto maalgashato shaki igama jiro sanooyinka soo socda in waddankan uu noqon doono waddan loo soo dalxiis tago Soomaaliya waxa ay leedahay dhaqan iyo taariikh u gooni ah marka la barbar dhigo Afrika inteeda kale waana goob istiraatiijiyad ahaan ku taala meel dhibaato ku ah wadamada dariska la ah isla markaana masraxyada dalxiiska dunida ka muuqan karta waaye badan kadib waxay hoteeladii dawladda oo hadda ay baabeen Shabeelle iyo hotel meelaas iyo bar Liido iyo afgooy la aadi jiray waa lagu soo dhaweey jiray dalxiisa loo imaan jiray dalkan aad u barwaaqo dalxiis badan ay imaan jireen hadda lagu daarta wala leeyahay barqash bin Saciid waxa loo dalxiis waa dadka ajnabiga markaa yimaado waa loo furi jiray marka albaabka galaysid wuxuu ahaa lama meel oo kanooni saa u fuulo madaafiicdii hore kanooni markaad gashid albaabka hore waxa joogay maroori oo adiga maroori oo mar hore dhinto wax lagu buuxiyay oo joogo waxa aan lay seefaf waxa aan lay wuxuu asaga isticmaali jiray waxyaalo badan oo aan lay Soomaaliya waxa aan lay waxa ashuun dhiilashaan iyo waxyaalaha la sufaayo iyo bidiyaha la tumayo iyo bakoraha iskan iyo waxyaalo badan la isticmaali jiray dalxiis suumankan oo Soomaaliyeed xiranayso oo waaweynka ah waxa la jiray kabo oo la dhigi kawooyin oo xamal lagu sameeyay oo maqaar ah boorsayooyin oo maqaar ah suuman maqaar ah waxa kale jiray toorey oo siyaanad lagu sameeyay jiray oo iyadana qiimo lahaan jiray waxyaalahaas waxa qaadan jiray dadka dalxiisku iimaanay boorsooyin kawooyin mara aliindi hadda abirna aliinti wuxuu ajir markaas ma sha Allah hadda dun khafiifa lagu sameeyaa hoteelada la fadhiisan jiray maqaayooyinka la fadhiisan jiray meel yira Cabdilsideeya meel yira Barbugumundo Liido la aadi jiray meel dhigi Telefontana la aadi jiray oo haweenkii lagu baashi la jiray waa lagu ciyaari jiray cunto fiican lagu qaadan jiray kubachata neer meel yira jiray oo Talyaani iska leh lagu qaday jiray waxyaalo badan xagga ammaanka aad u sugnaa si kasta dhisitaanka goob loo dalxiis tago waxa ay Muqdisho u noqon doontaa calaamad aad u weyn oo soo jiidata dalxiisayaasha caalamka kororka dhaqaale ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay cadeynaysaa inaysan kaliya ku ekeen kobaca hoteelada adeegyada isgaarsiinta ayaa kor u kacay halka shirkadaha duulimaadyada ay yihiin kuwa horumar sameeyay qiyaas ahaan 15 duulimaad oo gudaha iyo dibadda ayaa maalin kasta ay ka sameeyaan diyaaradaha garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho dadka reer Muqdisho ayaa hadda ku nool
isbedelada siyaasadeed iyo kan dhaqaale uu wajahayo dalka waxaana muuqda horumar dib u dhis oo uu dalku kaga soo kabanayo raadkii colaadda 27 sannadood lumiyey jiritaanka Soomaaliya.